bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee soomaaliya caalamka janalkeena qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa kamid noqon doona madaxweynaha maamulka puntland oo dagaalkii ugu cusla ku qaaday saaxiibadiisii aranjan mar kale ayuu weeraray mas-uulkii ugu weynaa ee xilkaas u hayana kooxdaas waa uu ka qaaday wasiirka maaliyadda ee maamulkaasi puntland shakhsiyaad ayuu magacaabay isku shaareyn ayuuna sameeyey waan idiin soo gubi doonaa tallaabada uu qaaday siciidan waxay ka dhigan tahay qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona mid kamid ah beelaha dega maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo ka hadlay muddo kororsiga madaxweyne lafta gareen go-aano adag ay ka qaateen muddo kororsigiisa miyay ku dhawaaqeen banaanbaxyo kan ah oo loogu soo horjeedo muddo kororsiga lafta gareen waa soo gudbi doonaa maadaama jilbuucsa siyaasadda ee koonfur galbeedna ee shirka ay qayb ka yihiina sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu xogayaha qaramada midoobay kala hadlay dagaalka ka curtay dalka ee loogu soo horjeedo al-shabaab waa soo gudbi doonaa qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warar kale arrimaha caalamka ku saabsan fadlan haddii aad nagu subtaa marka subscribe-ka noo saa gambarle kana furo una sii sheergalay saaxiibadii meel kastay joogaan idinkoo kumentiga laag inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin naga hilmaamin had iyo jeer inaadna soo booqataan oo laag iyo subscribe-ka noo soortaana aan ku bilaawno madaxweynaha maamulka puntland sayid cabdullahi deni ayaa mar kale wuxuu dagaal culus ku qaaday kooxdiisii saaxiibadiisii aranjan waxa uuna xilka qaadis ku sameeyey mas-uulkii ugu sarreeyay ama ugu awooda badnaa xilka maamulkaasi puntland ka hayay siciidani ayaa magacaabay wasiiro cusub oo ku biiraya xukuumaddiisa kadib dekreeto kasoo baxday xafiiskiisa taas oo qodobada loo cuskay ay kamid tahay baahi loo qabo baaliray dhamaystirka golaha xukuumadda ee maamulkaasi puntland dhinaca kale madaxweynaha ayaa magacaabay agaasimaha hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka puntland waxaana markaas u magacaabay sareer guud jamaal carab yuusuf ka oo markaasi xilkaasi qaban doonaa madaxweyne deni oo sida lagu sheegay war-saxaafeedka kasoo baxay xafiiskiisa wuxuu go-aankan kala tashtay ku-xigeenkiisa axmed karaash wuxuuna soo magacaabay 5 wasiir oo wasiirkii hore arrimaha gudaha soomaaliya uu ku jiro cabdi faarax saciid juxa wasiirkii hore arrimaha gudaha federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa siciid deni u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyadda maamulkaasi puntland sidoo kale wasiirkii hore u joogay wasaaraddaas arrimaha gudaha maxamed cabdiraxmaan dhabancad ayaa loo bedelay wasiirka maaliyadda puntland waxaana meesha ka baxay xasan sheekh abgaal maxamed saciid maxamed farole ayaa deni wuxuu u magacaabay wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee puntland maxamed waxaa adeer u ah madaxweynihii hore ee puntland haddana ah senator ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya waa cabdiraxmaan farole maxamed cabdiwahaab axmed ayaa idaankiisa loo magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta puntland halka cabdirasaaq cumar ismaaciil sheekh adduuna loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulkaasi puntland daba siciidani markii uu magacaabay kadib ayaa markaas waxaa si weyn u qabsaday baraha bulshada arrinta ku saabsan bedelaada uu ku sameeyey wasiirkiisii ugu awooda badnaa ee inta uu xilka hayana si weyn u taageertaa saaxiibkiisii siyaasadda xasan shire abgaala deni ayaa markaas iskushaaneyntan wuxuu markaas ku tilmaamay inay tahay mid baahi loo qabay puntland ayaana xilkii ka qaaday wasiirkii maaliyadda puntland xasan abshir abgaal waxaana loo magacaabay maxamed cabdiraxmaan dhabacadda arrintan ayaa sidoo kale waxaa aad ay dadku ay u falanqeynayaan sababta madaxweyne deni ku qasabtay in markaas uu magacaabo isku shaadheyntan ayaana loo arkaa inay tahay mid markaasi bilow u ah doorashada soo socota ee puntland ka dhaceysa 2024 qaybihii hore ayaa daawanaysaan saaxiibayaal markaana haddii aan eegno koonfur galbeed qabiilo cusub ayaa markaasi beel kamid ah beelaha halkaasi dega ayaa shir ka yeeshay muddo kororsiga uu sameystay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen meesha samadabixinta maamulka koonfur galbeed ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta ugu miisaanka culus ee deegaanada koonfur galbeed ayaa soo saaray bayaan dheer oo ku saabsan xaaladda ka jirta deegaanada maamulkaas iyo habdhaqanka madaxweyne lafta gareena meesha waxay caddeynaysaa in cabdicasiis lafta gareen ay u hereen bilo yar ka dhammaanayo 18 bisha December ee sanadka 2022 islamarkaana aan laga ogolaan doonin muddo kororsiga uu sameystay iyagoo markaas ka diiriyay xaaladaha amni bini'aadanimo iyo maamul ee ka jira koonfur galbeed sidoo kale xildhibaano ka aragti duwanaa lafta gareen oo baarlamaanka maamulkaas laga saaray ayaa bayaanka lagu sheegay in xildhibaanada rasmi ay yihiin iyagona kala fadhiyada baarlamaanka maamulkaas markaasi ayaa dalbaday in deg deg loo furo ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya ayaa markaasi iyo gudoomiyaha golaha shacabka iyo wasaare xamse cabdi barre ayaa qoraalkan loogu sheegay inay mas-uuliyadda ka saaran tahay si doorasho xuur ah koonfur galbeed lagu qaban lahaa markii la gaaro 18 bisha December sanadkan 2022 dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal qabiilo cusub ayaa ku biiray dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee markaasi ka socda guud ahaanba dalka qabiiladan ayaa markaasi is abaabulaya
waqti dheer ciidanka dowladda federaalka ayaa hortaagnaa kooxdan, laakiin way gaarsiin waayeen heerku uu kacdoonka maanta joogo. gobolka hiiraan beel cusub ayaa ku beertay dagaal natiijadiisu muuqato oo weli ka socda gobolka ugu wax soo saarka badan gobolada dhexe ee soomaaliya. sidoo kale caasimada muqdisho ayaa beesha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee mudulad ayaa u fariistay wadatashi ku aadan sidii ay dhulkooda ay uga xoreyn lahaayeen al-shabaab kadib kulan ay yeesheen. beeshaan oo al-shabaab ay ka haysto dhul badan waxaa la aaminsan yahay in haddii ay dagaalka toos usoo galaan badan markaasi ay ka bedeli doonaan. wararka ka imaanaya dagaalka ayaa sheegaya inay jiraan qoysas iyo waalid bilaabay inay caruurtooda ay kala soo baxaan dhanka al-shabaab xilli dowladda soomaaliya ay qabsatay koox kamid a dagaalamayaasha al-shabaab dhowrkii isbuuc ee lasoo dhaafay. walaaca ugu badan ee qoysaska waa in ay wiilashooda ay gacanta ugaan qabiilo careysan oo dhowrkii sane ee lasoo dhaafay gumaad lagu hayay. al-shabaab waxay isticmaali jirtay aragti ah inay deegaan walbo madax ugu dhigto qof aan markaas u dhalan si aysan dadka u helin naxariis iyo xukun jilicsan. ciidanka cayina sidoo kale sidaas ay ku sameeyeen, laakiin maadaama qabiilada markaasi kaceen waqtigan waxaa dhici karta in baa layiri askarta al-shabaab ay qabiilo careysan ay gacanta u galaana. waalidka dhalay dhalinyaradaas inkastoo ay markii horeba ay ku guuldareyseen inay caruurtooda ka reebaan kooxda, haddana walaacooda wuxuu hadda daaran yahay in caruurta argoos loo layo. iyadoo uu dagaalka sii xoogeysanaya al-shabaab ayay goobo badan iskaga baxeen ayaa haddana waxaa la isweydiinayaa dariiqa ugu sahlan ee dhalinyarada markaasi rabtay inay kasoo baxdo al-shabaab ay raadinayaan. qoysas fara badan ayaa caruurtooda dib ugu soo laabteen, iyadoona sidoo kale ay ka walaacsan yihiin waxa ay wiilashooda la kulmi doonaan haddii ay markaasi isku dayaan inay si qarsoodi ay markaasi ay kusoo laabtaan. dowladda ayaana loogu baaqay inay sameyso xarumo ay isku soo dhiibi karaan dagaalamayaasha doonaya inay kasoo laabtaan fikirkii hore ay markaasi ay hubka ay u qaateen. khubarada dhanka amniga waxay ku baaqay in dowladda federaalka ay sameyso xiriiro toos ah oo markaasi la garanayo ay beegsan karaan kuwa raba inay soo dhiibaan oo ay markaasi ka tanasulaan fikirka markaasi al-shabaabnimada ay weli uu ku dambeeyo. qaybihii gabagabada ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal. markaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu markaasi mareykanka kula kulmay xogyaha markaasi qaramada midoobey antonio guterres. madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan qaatay xogyaha qaramada midoobey antonio guterres wuxuuna kala hadlay gargaarka degdega ee abaaraha iyo mashaariicda horumareed ee laga fulinayo dalka ee arrimaha dagaalka al-shabaab. madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida ay u go-an tahay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo xasuunida dalka, waxaanu la wadaagay xogyaha qaramada midoobey halganka isku dhafka ah ee ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ay wadaan ee dalka looga xoreynayo al-shabaab. xogyaha qaramada midoobey antonio guterres ayaa soo dhaweeyeen aragtida madaxweynaha ee la xiriirta dib u qabeynta mashaariicda horumarneed ee ay ku fulinayaan dalka, wuxuuna tilmaamay inay ka fulin doonaan dalka. wax uu ku tilmaamay inay talooyin iyo soo jeedin madaxweynuhu ay ku saleysan tahay taa oo ay doonayaan in badan in beesha caalamka ay ka qabato. antonio guterres ayaa ku bogaadiyey shacabka iyo dowladda federaalka sida ay u go-an tahay horumarinta hanaanka dhaqaalaha, dinacafinta, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo xal u helidda duruufaha soo laalaabtay oo ay kamid tahay abaaraha iyo fatahaadaha. ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa markaasi ugu mahad celiyay qaramada midoobey taageerada ay siiso dowladda federaalka ee soomaaliya, isagoo ku adkeeyey inay sii wadaan garabisaaga ay u muujinayaan shacabka soomaaliyeed. guud ahaana wararka waaweyn ee soomaaliya caalamka aad kala socoteen janalkeena khiyaarta hawdna kala socotaa waa naginta. haddii aad nagu cusubtaa fadlan hilmaamina subscribe talado gambaleelkan afurto noo sii shiragalaynsaa saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo kumentiga laakiin noo reebayo waad ku mahadsantiin had iyo jeer si aad nala socotaan oo nala jaan qaadaysaan.